أو يعلمهن من يعمل بهن شن الريموت يا إيقاقاتا أو كردقمة كعمل فلا أما قارسية أو براه عدكو عمل فشا يا إما إنا أذوكو عمل فشا وأتقاضتو دقن قليسو يا إما إنا تسي قارسيسو عدك لو كردقنتو كعمل فشا أبو هريرة وحديث كورنا يوحي سؤال شامركو النبي قويدي صلى الله عليه وسلم الصحابة أي وحن إريبوري أنا يا رسول الله أنا قاضنا يا شنطة الريموت وحيلي مركز النبي صلى الله عليه وسلم كعنت إذا قبتي فعدهن فيها كعنت إذي سقوها هي وشنطة الريموت نبي إيتريه صلى الله عليه وسلم كعنت إذا كتريه مركز شنطة الريموت مهم أوي قضبك كوباد النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وحي إلهي حرمي وأكودي لي وأكاربي إسك إلالي هذا السيدة يشو وحان نقونيسا الدومة إلهي ميتك أغو عبادة في عن كوغو سترنك عبادة نقونيسا وقضبك أوه الريوة دين تمرك اللي سجيه قضبك لفدبرتا ugu khayr badan waa xalaal miirashada way inuu ruuxu maxaarimta wixii Ilaahay xarimay isaga fogaado iska ilaaliyo taas waxay tilmaamaysaa inuu ruuxaasi ruux diin leeyahay adoon Ilaahay adoonnimadiisa xaqiijiyeen inuu yahay nabigu salawaatu rabbi wa salaam alayhi markuu leeyahay diintiina waxa u khayr badan xalaal miirashada iyo ruux xaaraanta inuu isaga fogaado bimaana waxaad garan kartaa maanta waxaad helaysaa dad aad u cibaado badan oo soom badan oo salaad badan oo i'tikaaf badan oo umrada aan kala goynaynin oo diyaarad si saaran oo soo saaran haddana baabka marka la yimaado xaaraanta iska qasanaya aad bay u badan yihiin sooma aad bay u badan yihiin إن رأيت دad salaad badan oo soom badan oo cibaado badan oo way badanta laakiin inaad aragto ruux xaaraanta iska ilaalinaya iyo shahawaadkiisa kontroolaya khaasatan markay adduunyo iyo maal gasho waa yariye halkaas aad ka garan kartaa marka nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu leeyahay ittaqil maharima takun a'bada an-nas wixii ilaahay xarimay ka fogow iska ilaali waxaad noqonaysaa adoomada Ilaahay midka ugu cibaado fiican adoonka ugu sitay ugu fiican baad noqonaysaa qodobka koobaad ee nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dardaarmay waa kaas qodobka labaadi nabigu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi warda bima qasama Allahu laka takun aghna an-nas wixii Ilaahay ku qayb ku siiyay oo Ilaahay tabaaraka wa tacaala ku qoondeeyay raali ku noqo Ilaahay baa wax qaybiyay adoomadiisa wax u qaybiyay cimrigiibu u qaybiyay xoolihiibu u qaybiyay aqligiibu u qaybiyay caruurtiibu u qaybiyay quruxdiibu u qaybiyay milkigiiyo iyo kursigiibu u qaybiyay Allah baa waxan qaybiyay tabaaraka wa tacaala wuxuu qaybiyay rabbi tabaaraka wa tacaala xidli aan koonkan bal dhisin baa waxan oo dhan la qorsheeyo la qoondeeyay wixii kugu soo hagaagi lahaa iyo wixii lagu siin lahaa maalinkaas la xariiqay haddii la xariiqay wixii Ilaahay ku siiyo qayb ahaan ku siiyay raali ku noqo ku qanac ha ku yaraado ha ku badnaado inta Ilaahay ka siiyay alxamdulillah iimaanso wixii Ilaahay ku qoondeeyo ku qorsheeyay hadaad ku qanacdo raali ku noqoto ayadana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam takun aghna an-nas dadka ruuxa ugu taajirsan baad noqonaysaa ugu qanisan
صوت محيتهاي لأن سيد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس حول بدني يهنتي بدني معها غني نمدي يتاجر نمدو إني قعنت هذا بوحدة معه إني أكونذو كوبوحان معه تاجر نمدو ربطها معه لكن تاجر نمدو ربطي وحويان إن قلبي قاقو وتاجريه إن القناع سنته إن إلهي وحكسي رالي كتاه إن الإيمان كاقا قبطه تاسا وحي تايب النبي صلى الله عليه وسلم غني لماذا ربطها قضب كاس صدحات ورسول كان يقول صلوات ربي والسلام عليه أحسن إلى جارك تكن مؤمنا درس كاقا وناك السماء مؤمن بعد نغنى درس كاقا ياوه أفرتن قري وأفرت دينعكاك لحكتاي ودرسكاك ومقالة أفرتن قري وأفرت دينعكاك لحكتاي كل ودرسكاك هو إحسان أصمه إحسان كوحل اللي ذهب إلينا حلمه بمعنى بذل الندى وكف الأذى وحي دبكاك أكرر وحي داف يوناك الله يرتهينا قارسي ووحكسي درسكو وميلها أي دينتين محوكا صارت ساس درادي اللبض القضب اللي وحيكي النبي كدر صلى الله عليه وسلم باتكا قرن كرتان أحسن إلى جارك حيكو تصي إيمان حديث كيف الصحيح كي يدات الماما يو النبي يقول صلوات ربي والسلام عليه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن إلهي بان كدارتي مر رمينين إلهي بان كدارتي مر رمينين إلهي بان كدارتي مر رمينين marka saxaabadu xilli rasuul ilaahay oo kaasi waa mid khasaaray oo hoogay tolo yaa waay ninka saddex goor nabigu saddex dhaarood istaba dhigay inuu san rumaynin oo iimaan lahayn waa kuma nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu nabigu sallallahu alayhi wasallam waa ruuxa aan dariskiisu aamin ka ahayn sharkiisa bawaa'iqda nabiga fasiray weydiiyeen saxaabadu bawaa'iqdu maxay tahay rasuul ilaahay وحنبي صلى الله عليه وسلم شره وشركيس أفكاك إيه أدنكاك هدو درس كاغو كبد بادي واي دليل وحي أطهي إيمان كاغو إنه وحسكيه لأن علامة الإيمان وحويان إن درس كاغا الإحسان الصميس ساستردد بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن إلى جارك تكن مؤمنا علامات إيمانك اللي قرتوه قضبك أفراد نبي وحوري صلوات ربي والسلام عليه ودردارمي وحوري صلوات ربي والسلام عليه درس كمركو كهالي أي قضبك أفراد رسولك وكردك صلوات ربي والسلام عليه أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ضدك الله تشعلو waxaad naftaada la jeceshahay muslim baad noqonay maxaad naftaada la jeceshahay wixii khayreed naftaada la jeceshahay dadka la jeclow طبعا wixii naftaada aan la jeclayna dadka la jeclaanin xadiisku wuxuu ka hadlayaa waa jacaylka qalbiga waa doonitaanka qalbiga khayr ma la jeceshahay naftaada ha dadkana la jeclow maxaad rabtaa waxaad jeceshahay wanaaga تعيشها إن الحوله هشوا تعيشها إن العروه هشوا تعيشها إن الدين هشوا تعيشها إن الدبجلية هشوا تعيشها وحي ولا قرن بعد تعيش وحي كل ما يورنا ونعبت تتكسيدا سوق لك سوقات نفط هذا كلك سوقات وحي أن نفط هذا لا تشعلين تتك لا تشعلاني والشرع يدبع وحي نفط هذا لا تعيشه وانا قنا لا تشعله بالنبي يقول صلوات ربي وسلامه وميزان عجيب أول وميزان عجيب أول markaad la jeclaato jacaylkaasi muxuu baabi'inayaa wax la yiraahdo anaaniyada iyo xasadka qodobka shanaad ee ugu dambeeya xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam wala tukthir ad-dhahik fa inna kathrata ad-dhahik tumitu al-qalb qasalka badinin
qahqahda ha badinin maxaa yeelay qosolka faraha badani qalbigu dilaa waxa kala duwan ibtisaamada iyo qosolku waa kala duwan ibtisaamadu waa muusoodka waa dhoola cadaynta midaasi ajir baa laga helaa waqta nabigana yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tabassumuka fi wajhi aqiika sadaqa walaalka markaad iska hortimaadaan inaad muusooto dhoola cadayso oodan qabiid ahayn waa sadaqo ajir baa laga helaa tawa muusoodka waana tii nabigeena u badnaa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi midna waa qosolka ka hadawa ka noocaas oo kala nabiga sallallahu alayhi wasallam ha badsanin طبعا marka qaar kood ruux waa ka dhacaya laakiin maxaa la diidan yahay badsanin dib buu leeyahay ruux markuu qosolka badsado qalbigiisa dhinta qalbiga maxaa ka dhinta dareenkii baa ka dhinta cabsidii baa ka dhimata walbahaarkii iyo murugtii aakhira ka dhimata laan qalbiga markii aakhiro iyo geeri iyo macaanidaasi ka buuxdo qalbigu inuu iska qoslo ruux iska kahleeyo uma badna waxa la doonayaa in ay badato cabsidaada iyo murugtaada waxay keenaysaa in uu qosolkaagu yaraado qalbigaagu noolaado macaanida aakhira ku noolaato mustaqbalka iyo waxa soo socda qalbigaaga inay ka buuxsanto cabsida alle iyo murugta aakhiro inay qalbigaaga buuxiso ma diidayso muusoodka ma diidayso laakiin qosolka faraha badan baa la diidan yahay ee dadku in badan u badan yihiin saddexda ashanta qodob oo nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi uu yiri yaa iga qaata oo ku amal fala ama cid ku amal fasha gaarsiiya abu hurayra yiri rasuulilaahi oo ana qaadanayo ku amal falay war inaguna soo madhina dhaana ma inaguna soo inaan farta u taagna ma mise abu hurayra kaliyan ku dayna wanagu ma baahnin miya waa u baahanna rasuulka ilaahay oo annagana waa qaadanay waana ku amal falayna dadkana waan gaarsiinayna taas la inaga raba Soomaa tawfiiqna Allah ina waafajiyo hada billahi tawfiiq sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi